إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan gudu jirnaa muxaadarooyinkan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay waxyaabaha soonka burinaya iyo waxyaabaha soonka aan burinaynin iyo waxyaabo ay ka dhalanaysa kafaaro gaar ahaan waxaan ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay haddii qofka soonka ugu buro asoo iloobay ama lagu qasbay ama ka jaahil ah xukunka ku saabsan in qofka sooman oo wax cunaay soonkiisa muxuu noqon hayaa muxaadara ugu dambaysay ayaan waxaan ugu su'aalnay mas'alo ahaday jahliga cudurdaar ma yahay sida ilowga oo kala oo soonkiisa mufasahaadinaya miya ama sama fasahaadayo laba suurad baa ku jirtaa niri suurada koowaad waxay ahaday qofka hadduu jahli ka yahay waxyaabaha soonka burinaya ama wax kamid waxyaabaha soonka buriyo ee wixii soonka burinaya oo sameeyaa soo sooman maxay culimadu ka dhaheen waxaanu soo sheegnay maalikiyada inay yiraahdeen qofka hadduu yahay qof mar dhow soo islaamay oo markaasi uu malaynaya soonka inuu yahay oo kaliya in ay mamnuuc tahay inuu wax la cuno ama wax la cabo laakiin uusan ogeen xaaska in loo galmoodo inay iidan mamnuuc tahay ee ay dhacdo inuu xaaskiisa u galmoodo wax kafaara laga maraba ay yiraahdeen maalikiyada waxa kale oo soo sheegnay maalikiyada qaar kamid inay leeyihiin qofkaasi inuu gudo iyo inuu kafaara la yimaado waajib ku ah shaafiiciin waxay yiraahdeen haddii qofka cuno ama uu cabo ama xaaskiis u galmoodo asoo jaahilka inay xaraan waxay yihiin qofka asiga haduu yahay qof mar dhow soo islaamay ama ku barbaaray meel baadiyo fog ay suuragalna tahay waxyaabaha soo kale inay qarsoonaadaan qofka asiga soonkiisa ma burahayo wuxuu og yahay baraadeen qofkii iloobay ama haduu yahay qof dad muslimiin la nool oo ayna suuragal in waxyaabaha soo kale oo soonku burinay inay qarsoonaato ama agtiisa ka qarsoonaato qofka asiga ah soonku waa ka buraya sababta asaga gaabi baa la leeyahay waxa kale oo soo sheegnay xanabilagto waxa saxiix ka ah qofka jaahil ka ah waxyaabaha xaaraanta ah oo aan ogeyn waxyaabaha inay soonka burinayaan qofka hadduu waxaas la yimaado in soonkiisa uu burayo maxaa yeelay qofkii afuray asagoo jaahil ah waa qof aan cibaado u qasdin bay dhaheen qofka waxa la amray bay yiraahdeen inuu ka tago wax cunid iyo cabid haddii uu saani yeelin macnaheedu waxa weeyaan inuu u qasdin cunidii cabidi ka tagideedii waxaan soo sheegnay masalan raajax uu yahay jahli inuu cudurdaar yahay sida ilowga oo kala waxaase shardi baa niri jahli inuusan ku imaanin sabab asi uu ku gaabay ama takhsiir xagiisa ka yimid hadiisa xagiisa gaabin ay ka timaaday qofka asaga loo cudurdaari maayo soonkiisu waa buriya inuu qadayna waajib ay ku tahay hore u soo sheegnay suurada labaad mas'ala ku jirtan waxa weeyaan qofka hadduu og yahay waxyaabahan inay xaaraan yihiin waa og yahay laakiin wuxuu jahil ka yahay ciqaabta ka dhalanayso inuu qof sooman waxnu cuno ama wax cabo ama xaaskiisa u galmoodo inay xaaraan tahay waa og yahay laakiin ciqaabta ka dhalanayso war kama hayaba qofka asaga ah wuxuu lamid yahay bay culimadu leeyihiin qofku ogaaday xaaskiisa inuu u galmoodo maalin ramadaan ama soo sooman inay mamnuuc tahay ka jaahil noqday kafaaradii uu ku waajibaysay oo waxay culimadu ka hadleen marka qofka noocaasi kafaarada ma ka dhicin ma ka dhicin jawaabtu waxay noqonaysaa in qofka kafaarada ka dhicinin sababtoo ah hadduu qofku ogaaday shayga inuu xaaraan yahay ama ficilka la sameeyo xaaraan yahay inuu ogaadana waa aheeday inuu shayga wax ka dhalanayaan sababtoo ah shay aad ogaatay inuu xaaraan yahay haddii xaaraannimada naftirka waxay keenayaan inuu ogaatay shayga inay wax ciqaab ka dhalanayso soomaan sabab marka waxay culimadu leeyihiin kafaara ayaa ku waajibaysa qofka haddii oo og yahay in waxaan xaaraan yihiin laakiin ciqaabta ka dhalin uusan ka warhaynin mas'ala kale arrinta raacsan waxa weeyaan al-ikraahu 'ala al-ifdaari haddii qofka lagu qasbo inuu soonka furo labada mas'alo hore waxay aheeday qofkaani waa iloobay ama jaahil buu ka yahay kan waxa weeyaan qofka asiga ma iloobin jaahilna kama ahan laakiin qasab ayaa leeyahay biyo ku cab ama ku cun mas'ala noocaasi culimadu way kala qaadeen oo laba qayb ay u kala saareen qaybta koowaad waxa weeyaan qofkii lagu qasbo waxyaabo soonka burinayo oo aan jamaac ahayn qofkan waxa lagu qasbay waxyaabo soonka burinaya hasa hatay jamaac ma ahan soonkiisu muxuu noqonayaa ma buriya ma buriyo culimadu way soo khilaafeen qolo waxay yiraahdeen soonkiisu ma burahayo oo haddii qofka lagu qasbo cunid iyo cabid soonkiisu ma buri bay yiraahdeen qowlka asagana waa midka asax ka ah shaafiicida agtooda
waana si madhabka xanaabila agtooda waana qowl daahiriya waxay daliisana waxa kamid ah xadiiskii Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri qala Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka Ilaahay wuxuu yiri inna Allaha wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ummadii wuxuu ka dejiyay oo yaani uu ka rafciyo dambigooda loo haysanin waxyaabo ay u sameeyaan si khalad ah ama waxyaabo ay iloobaan ama waxyaabo lagu qasbay hadii qofka la qasbo soonkiisa ma buray bay yiraahdeen waxay kula dilisanayaan qowlkii Allah subhanahu wa ta'ala ee ahaa illa man ugriya wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan ayad waxay ka hadlaysay qofkii lagu qasbay gaalnimo ee ku dhawaaqay waxyaabo gaalnimo keenaya hase ahaatee qalbigiisa mutma'in uu yahay xasilan yahay iimaankiisa islaamnimadiisa ilaashanayo hase dadka awood badan ee cadow ku ah ee qabsada dartii ee ciqaabay oo ciqaab markay u geysteen ku dhawaaqay kalimatul kufri qofka noocaas oo qalbigiisa xasilan yahay asiga ma gaaloobayo saabu quraanka tilmaamaya hadii qofkii gaalnimo lagu qasbay ee aan gaalnimada ogoleen ee ku dhawaaqay waxyaabo lagu gaaloobayo ee leeyri ma gaaloobayo waxa ka sii baab oo laga yiraahdeen qofkii cuno lagu qasbay inuu san soonka bureenin qowl labada mas'ala ku jira wuxuu leeyahay soonkiisu waa burahaya qofka hadii lagu qasbo waxyaabo soonku buranayo aan jamaac ahayn soonkiisu waa buraya inuu qadayna waajib ku ah maalikiyada iyo xanafiyada iyo qowl shaafici u sugnaaday iyo waj ay xanaabila leeyihiin ayaa saasi qaba waxayna leeyihiin qofka asaga uu afuray si ula kaca asoo xusuusan soonkiisa waa buri bay yiraahdeen oo midkii iluusana waa ka duwan yahay bay yiraahdeen oo midkii iluusan asal ahaanba wuxuu iluusanaaba inuu sooman yahayba qolada marka waxay leeyihiin waxa la qaadanayaa oo la leeyahay soonkiisa waa buray qofkii lagu qasbay waxyaabaha soonka buriya haduu isticmaalo مثلا marka la fiiriyo qowlku u raajaxsan wuxuu noqonayaa qowlka hore oo ahaa soonkiisa inuu san bureynin sababtoo ah qofka uma qasdin wuxuu asoo ku tala galay ma ahan waxa dhici karto qofka in la qabto oo biyo lagu dhaxrido oo biyo lagu kodo oo ay dhici karto biyo marka inay sanka ka galaan oo ay afka ka galaan oo dhagay ka galaan oo ay yaani gudaha u gudbaan soonkiisa ma burahayo sababtoo ah uma qasdin ama laakiin haduu asi biyo inuu dabaalahan u galo oo dhax galo oo dhagay ama sanki ama ay meel duleela ay ka galaan oo gudaha u gudbaan waxa weeyaan soonkii wuu burahaya walow dabaal caadi ba hadaba shee saadarta marka waxa wala gudboon dadka dabaalanayo xilliga Ramaadaanka marka la gaar in iska ilaaliyaan soonkooda wuu buriyaa hadii aynan taxadir badan ay muujinin qaybta labaad ee mas'aladaas waxa weeyaan qofkii lagu qasbay jamaac si gaar ahaaneed asoo sooman arintaas culmo isu khilaafeen waxa saxiix ka ah Xanaabila agtooda oo ay leeyihiin hadii ay dhacdo haween in lagu qasbo yaani galmoosho waxa uu qana qasbiga ama kufsiga loo yaqaan weeye horta soonkeedu waa buray bay yiraahdeen in qadaysan waajib ay ku tahay kafaana laga ma rabo way waxay leeyihiin soonku waa cibaado ku fasahaday oo ku buraya hadii ay galmoosho dhacdo marka galmooshaha sababteed ayuu soonku ku buraya xaalad ka soo ahaataba waxay yiraahdeen waa ka duwan tahay qofka lagu qasbay wax inuu cuno sababtoo waxay yiraahdeen wax cunida iyo waxyaabo la cabo la isku qasbaayo waa cudur daaro yaani maragtay idoo xitaa ay dhici karto in cudaan nisaan doo dhaco waa si xadiisku uu cadeynay ama qofkii xaas u galmooday asiga luma cudur daarin baleeri kafaara laga maraba yiraahdeen sababtoo ah kafaarada laga la waxay aheeday imma in qofkan la ciqaabahayo wa imma in dimi loogu tirahayo meeshaana kale looma baahno oo haweenadan iyada ah waa mid la qasbay oo waxa weeyaan cudur daar bay leedahay taa marka waa haween ama ninka lagu qasbay inuu naag u galmoodo asoo sooman ninka asaga ah kafaara ku waajibaysa asoo waliba soonka qadaynaya waa qadaynaya kafaarana ku waajibaysa sababtoo waxay leeyihiin la suuradaysan ma ibaaradan oo malaga maleysanayo qofka noocaas inuu xas ugu galmoodo maxaa jira hadii ay dhacdo ninkan asoo la qasbay inuu naagta u galmoodo waxa weeyaan qofka asaga isaaba markii hore ay shahwo idan haysay baa la leeyahay saadarta marka wuxuu noqonayaa qof aan la dirqinin oo kale buu noqonayaa oo marka naag u galmooday si asoo ula kaco asiga uu sameeyay Xanaabila saas bay ku tageen riwaayad Imaam Ahmed laga wariyay waxay leedahay iyo Xanaabila qaar kamid ah oo kamid yahay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah wax kafaara ah oo ninka iyo naagta la qasba laga rabaa ma jirto naagta la xoogo iyo ninka la yiri maxaan ku raana naagtan u galmo man wax kafaara laga rabaa ma jirto qadana laga ma rabo soonkooda oo ansaxaya sababta wadad laga xoog badiyo yaani maaragtay arintooda laga adkaaday weeyaan taan waxa tusinay weeraadeen adiladii aan soo dhaafnay umumkeedii baa tusinayo oo ah in qofka loo cudur daarayay
haddii la qasbo iyo qofkii ilowsana ayuu la mid noqonaa bay yidhaahdeenoo kafaara lagama rabo bay yidhahdeen. shaafici waxay leeyihiin naagta wax kafaaro laga rabo ma jirto. naagta sideedaba la qasbay oo xoog loo sheegtay kafaara lagama rabo, sababtoo iyada waxaa ka muuqda bay in la qasbay oo la xoogi, marka kafaaro ma baahna. ama soonkeeda soomahan, soonkeeda muxuu noqonayaa naagtan la xoogi? soonkeeda waxay yidhahdeen laba qowl baa ku sugan. si uu ansaxsan waxa weeyaan soonka inuusan burinin, qadana aan laga rabin. qowl labaad wuxuu leeyahay in qadaysa waajib ku ah, sababtoo soonkeeda waa buray oo waxay leeyihiin qasabka la qasbay wuxuu ka dul qaaday dambiga ay ku dhici laheeday haddii ay idar hal ku ahaan laheeday, ama soonkii waa buri bay yiraahdeen. ama ninka soomaha bay yiraahdeen haddii lagu qasbay inuu naag u galmooday arinku wuxuu u laabanay bay yiraahdeen khilaafii ka dhex jiray culimada oo ahaa oo mashhuurka ahaa oo ku saabsanaa ninka haddii uu lagu qasba jamaac oo markaas uu jamaaca ikraah ma ka suuragalaya ama ma ka suuragalayo, qof la qasbay ma noqonaa ma sama ahan. haddii la marka qof la qasbay wuu noqonayaa waxa la dhahayaa kafaara laga ma rabo asigana oo haweenid buu la mid noqonaya. haddii la yiraahdo haddii markaas uu galmoosho la yimaadaay laga suuraysan maayo qasabka meesha uu ka baxay daliil hadana kafaara ayaa ku waajibaysa baa la leeyahay. culimo kale masaa'il kale bay ka sheegeen, laakiin mas'ala waxa raajic ah qowlka dhahayo ninka waxa laga suuradaysanayaa ama yacni maragtay loo arkaya haddii lagu qasbay galmooshada ee u galmooday qof maxaan ku yiraahdaa u diyaar noqday arrintaas waa laga fiirinaya sida haweeneyda idin loo fiirinaya haddii ay macnaha arrintaas diyaar u tahay. mas'ala marka waxa raajic markii la fiiriyo qasbida ama qasabka oo ninka la yiraahdo naag u galmo waa la suuradaysanayaa sida haweeneyda loogu suuradaysanaya. mas'ala kale waxa weeyaan haddii ay dhacdo qofkii khalad inuu ku afuro, tusaale ahaan waxaa dhici karta qofki inuu suxuuranayay, markuu suxuuranay wuxuu islahaa weli waaga ma dhowo, waxa u caddaatayba mar hore in waaga baryayba, ama waxa dhacday in afuray asoo u malaynay qorax inay dhacday kadib waxa u caddaatay qorax inay soo jeedo, soonkiisa muxuu noqon hayaa? culimada arrinta isu khilaafeen. qolo waxay yiraahdeen qofka asaga waxa waajib ku ah soonka inuu sii wado maalinta booskeena u qadeeyo. haddii markuu suxuuranayay oo is yiri maxaan ku waaga weli ma baryin kadib ay u caddaatay inuu waaga baryay, waxaa la leeyahay maalinta inuu qadeeyo waajib ay ku noqonaysaa, soonkiina waa sii wadaya. waxaa kaloo lamid bay yiraahdeen haddii uu malaynay qorax inay dhacday kadibna ay u caddaatay qorax inay dhicin, soonkiisu waa sii wadaya waana qadaynaya. qowlka waxaa qabay jumhuurul culamaa oo kamid yahay imaam Maalik, Abu Xaniifa, imaam Shaafici iyo al-madhhab cinda al-Xanaabila. waxay yiraahdeen afaysashada afaysanayo ama uu waxba cunaynin maalintii intii ka hadhay waxa weeyaan qofka waxa laga dalbaday inuu soomo ayaa laga doonayay, cudurdaar u fasaxay inuu afuran meesha lama hay bay yiraahdeen. saadartay marka soonka iyo bisha oo xurmadeeda darteed buu u soonaanaya. ama qadaha waxa way yiraahdeen waxa waajib ku ah qofka inuu yaani maragtay soonka dhexdiisa oo wax kasta oo soonka burinaya ka afayso waaga markuu bariyo ilaa qoraxda ka dhiciisa laga gaaro. qofkii malayn inuu waaga weli bariyin ee wax cuno kadibna u cadaato inuu waaga mar hor bariyay, ama u malaynay qorax inay dhacday ee wax cuno kadibna u cadaato qorax inay weli dhicin, labada xaaladood waxay yiraahdeen waxa weeyaan qof wax cunay xilligii soonka saadartay inuu afaysta ma xasilin, marka waxa leeyahay qofka asaga ah in uu yaani maragtay soonkin uu ku waajibahayo oo sii wadahayo maalintan uu qadaynhayo. asmaa bint abi bakr radhiyallahu ta'ala anha ay waxay leedahay afdarna ala ahdi nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma ghaymin thumma dala'at ash-shams. xilligii nabiga alayhi salatu wasalaam ayaan afurnay maalin ay daruur weyn ay jirtay kadib ay qorax soo baxday. hisham ibn urwa waxa lagu yiri dadka ma waxa la amray inay qadayaan maalintaas iyada ah, markaas wuxuu yiri buddun min al-qada qadaha lama horaan way yiri. dabcan asi xadiisku wuxuu ku warinayaa xaaskiisii Faaduma bint al-Mudir oo kasii warinaysay ayadiis Asmaa. sidoo kale Umar ibn Khadaab ta'ala anhu xilligiisa waxa dhacay dadkii inay afureen maalin daruur badan ay jirtay kadibna ay qoraxdii soo baxday oo soo iftay. Umar dadku wuxuu amray maalinta in la qadeeyo. almuhimka qowlkooda wuxuu leeyahay marka haddii ay dhacdo qofkii inuu si khalad ku afuro ama uu ku suxurto asoo umaleynay wali qorax inay soo bixin ama umaleynay qorax inay dhacday, qofka asaga inuu qadeeyo soonkiina waa ku waajibaysaa, soonkiina waa sii wadahayaa. qowl kale mas'ala ku jira wuxuu leeyahay qofkii cuna ama caba asoo malaynay waagi inuusan wali baryin amaba malaynaya cadceed inay dhacday kadibna ay u cadaato saasi ka duwan, qofka asaga soonkiisa waa saxiix wuuna dhameystirayaa, wax ku waajibo qadaa'ana ma jirto. hadalkaasna waxa qaba salafka qaar kamid ah Isaaq ibn Rahuya iyo daahiriyada iyo riwaayad Ahmad laga wariyay si ayuna doortay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. waxyaabo ay dulisan waxa kamid ah
دليل عام أو جود وأنا عموم قوله تعالى الله هذا الكي سبحانه وتعالى عام نمديسي إيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلوها النوقبن هدي أن اللونا أم أن خلنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به دم دوشنا ما هانين وحي أدخلت أود عدين ولكن ما تعمدت قلوبكم وحال ذي قبصانية وحي أي قلوبتن قصدي وعاكل الدلسان حديثك إن الله تجاوز عن أمتي على الخطأ والنسيان وما سكروا عليه ومد الله سبحانه وتعالى وحو ضافي wixii khalad ay ku dhaceen iyo wixii lagu qasbay qol saddex mas'alo ku jira wuxuu leeyahay wax qado laga rabo ma jirto haduu qofku cuno asoo umaleyn wili habeenkii inuu baaqi yahay waxa ku waajibay buu yiri qado haduu yaani marat afuro asoo umaleyn quraxina dhacday sababta waxay leeyihiin waxa asal beenan habeenkii inuu wili jiro oo ay u banaaneen in wax cuno oo wax nacabo marka asalkii baa la fiirnaa sidoo kale maalin markii la joogay waxa asal inuu wili ay quraxda dhicin oo waxa asal inuu xaraan ka tahay wax cunto hadii marka aad khaladkaas ku dhacdo inaan yaani maratay qadaysa wajib ku hadii ay taa dhicin inaan qadaysa wajib ku ma ahan qolku uu raajixsan mas'alaas waxa weeyaan inaan kafaaro ku waajibeynin laakiin si wanaagsan waxa weeyaan inuu maalinta iska qadeeyo sidoo kale si loo xiro baabka iska fuudaysiga iyo si looga baxa culimada arrinta isku khilaafeen oo waliba jumhuurta ay qabaan leeyihiin inuu qadeeya wajib ku noqonayso gabagabada waxaan leeyahay qofkii suxuurto asigu umaleeyay waagi inuu bariyin ayu cadaato waagi inuu bariyay qofka asaga maalinta inuu si qadeeyo fiican sidoo kale waxaan leeyahay qofkii afuro asoo umaleeyay in qurax dhacday kadibna ayu cadaato inuu wali qurax dhicin asiina waxaan leeyahay maalintaas iyada iska qadeey inta ku dhaman iska dhameystiraan leenahay waa khilaafisa ugu baxdo laakiin culimada qaar baa qabto in soonkiisu ansaxaya wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam